ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إلهي سبحانه وتعالى dumarku wuxuu u sameeyey khaasatan kuwa iimaanka leh miise iyo qiimo iyo qaayo aad iyo aad u weyn. waxaad ka fahmi kartaa waajibaadka ilaahay dusha ka saaray subxaana wa tacaala. waxaad ka fahmi kartaa qiimaha dumarka loo yeelay sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala inay ku dadaalaan xirashada xijaabka iyo dharka islaamiga ah. ilaahay asagoo tilmaamaya ayuu yidhi yaa ayuha nabiyu nebigaanow qul liaswaajika gabdhahaaga waxaad ku dhahdaa qul liaswaajika wa banaatika iyo wa nisaa'i almu'miniin xaasaskaaga la hadal. waxaad la hadashaa gabdhaha aad dhashay, waxaad la hadashaa gabdhaha mu'minaadka ah ama wiilasha mu'miniinta gabdhaha u jooga dhammaan oo amar sii. waxa la amray ma aha walaalayaal inay dirca qaataan. waxa la amray ma aha walaalayaal inay isqaawiyaan. waxa la amray ma aha inay tabaruj iyo bannaanbax sameeyaan. waxa la amray ma aha inay kalaabyada iyo meelaha aroosada ka ciyaaraan. laakiin maxaa la amray yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, is-astura oo isqariya. waayo gabdhuhu waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu qaalisan bay ka mid yihiin ee adduunka jooga. waxyaabaha aadka loo jecel yahay ayay ka mid yihiin ee adduunka jooga, si uusan nin kasta si sahla u helin, si uusan nin kasta gacanta ugu taagin, si qof kasta uusan ugu hanqal taagin ayaa waxa qaaliga ah ee dhaymanka ah ee dahabka ah meel asturan baa la geliyaa. sidaa darteed dumarka islaamka ah waxa uu ilaahay ku sharifay inay jalaabiib qaataan. waxa uu amray inay xijaabka islaamka labistaan. waxa uu amray inaysan iska dhigin badeeca raqiis ah. walaalayaal sida la fahmi kara maanta waxaad arkaysaa qaawanaashii bay wax fiican u maleeyeen, qaabdaradii ayay u maleeyeen wax wanaagsan. wax walba oo rabbi idin amray qiimahiinaa ku jira, war sharaftiinaa ku jira. gabdhaha muslimaadka u isxijaaba, war ilaahay ka cabsadee jalaabiibta qaata, war ilaahay ka cabsadee is-astura, war ilaahay ka cabsadee amarka ilaahay qaata subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayhi wasalam laba qolo ayaa imaan doonta gadaashay buu yidhi. laba qolo ayaa imaan doonta aakhiru zamanka. qoom koowaad wuxuu ku tilmaamay dad xaqdarra ku socda, waxay wataan guruume iyo ulal aad u mooda saynta lo'da oo kale. dadkay ku garaacaan oo xaqnimay ku garaacaan. magacoodu waa magac ka mida magacyada naarta suu nebigu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. subaxii markay rawaxayaan carro allay ku baxaan, markay soo caraawayaan galabtiina saqad iyo xanaaq allay ku soo noqdaan subxaana wa tacaala. qoomkaasi waa qoom macruufahoo la yaqaano. qoomka labaad rasuulku wuxuu yidhi waa nisaa, waa dumar kaasiyaad ah, caariyaad ah, maa'ilaad ah oo mumiilaad ah. sida loo raadinayaa la arkay gabdha 18 jira ah oo kalaab ka tumanaya, surwaal iyo funaanad bay wataan, islaamnimay sheeganayaan, ummaddii nebi moxamed bay sheeganayaan, soomaalinimay sheeganayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa 18 jir, waa 17 jir, waa wax ka sii yar iyo wax markaa ka weyn. waa dumar dhar qaba haddana qaawan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nimcada allay labisan yihiin, shukrigeeday ka qaawan yihiin. dharjiskooda iyo jasadkooday dhinac banneeyaan, dhinacna way qariyaan. gabdhaa imaan doona ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayhi wasalam. waa dhar la'yihiin haddana dhar bay qabaan, dirac bay wadataa, sadrigeedaa la dareemi karaa, la sifayn karaa, caddaan iyo madow iyo guduud, wax allaala waxa uu yahay. waxaa la arkayaa silsilada iyo katiinada u xihan. waa dumar noocaas ah, dadka ayay iilaan, ayagana xaqay ka iila yihiin. ummadday leexinayaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alleh. raggii maanta in badan dumar baa fidneeyey, waxayna ku fidneeyeen amarka allay qaadan waayeen, waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen,
waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay bannaanka la soo baxeen, waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan, waxay ku fidneeyeen wax allaala wixii cadaab alle lagu heli lahaa subxaana wa tacaala. dumarow in badan xishooda, war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala. mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa, hadday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa. dumarku hadday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan. mucaawiya ibn abi sufyaan baa mimbarka nebiga ku istaagay, baashaan burukaday dumarku qaataan buu gacanta ku qabtay. wuxuu yidhi ahlulmadiina aaway culimadiinii, war aawa dadkii xaqa dadka gaarsiinaayey, war aawa dadkii diinka ilaahay dadka gaarsiinaayey. bahashaan markay dumarku yeeshaan ayaa la halaagaa. rasuulkuna xadiis ayuu ku yidhi adduunku waa macaan yahay, macaanka carabkaa jecel saad la socotaan. adduunku wuu cagaaran yahay, cagaarkana indhahaa jecel. labadaba adduunkaa lagu soo kulmiyey. ilaahay khaliif ayuu idinkaga dhigay asagoo raba inuu eega kayfa tacmaluun, saad ugu camal qabanaysaan. fattaqu ddunyaa wattaqu nnisaa, warka cabsada adduunka, dumarkana ka cabsada. fidnadooda aad iyo aad uga cabsada. war qabta in badan oo guryaha geliya, war in badan u diida tabarrujkii safarka maxram la'aanta, war in badan ha u oggolaanina inay bannaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn, war wax badan ha u oggolaanina inay meelaha fisqigaa aadaan, war wax badan ha u oggolaanina. waayo fidno tii ugu horaysay ee reer bani israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid. way isqaawiyeen sida kuwayna maanta isu qaawiyeen, maxalla ayay samaysteen siday kuwayna maanta u sameeyeen, aroosyay ka ciyaareen sida kuwaynay uga ciyaaraan, buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuwayna diin uga dhigteen. in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeya naftiina, in badan jalaabiibta islaamka qaata. war aayad ilaahayoo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo bas raacaysa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo, yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqaa ka adeeganaysa. noqda walaalayaal, in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaala. saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya, saad diinta alla u nacdaan bay jannadu inid nacaysaa, saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaa u jeclaataan yaa ibliis iyo shaytaan idin jeclaanayaa haddii kale. rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin, xaqana dadkay ka iilayaan. war ka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin, afka guduud marsatay, dirac khafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata, laamigaa intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal. sow ma arkin 7 jeer inay gadaal idiin soo eegayaan, sow ma arkin inay idin fiirinayaan. waa maa'ilaad, way iilan yihiin, dadkiina xaqay ka iilayaan. war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan, war sabab u noqda raggu inay hanuunaan. mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko, yay malaa'igtu ku faraxdaa, xasanaad loo qoraa, rabbi jeclaadaa, shaydaanku ka cararaa. laakiin kuweenna maanta shaydaan baa saaxiib la'a. war saaxiibnimada shaydaanka gooye, xiriirka ilaahay hagaajiya. sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray, waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale oo iilan. wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye, xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam. naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye, xataa udugeeda heli mayso. naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo. tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay, tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka. mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa tacaam looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala. waxa la cabsiinayo oy adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa. laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday, waxa ka yimaadeen dheecaan ah, kaasaa sharaab looga dhigayaa. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarka in badan ayuu la hadlay. waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo,
in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino, in rabbi subxaanahu wa tacaala laga cabsado, khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo. dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin. ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo. moodeelada maanta soo baxay iska ilaaliya. waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan. way soconaysaa, way xijaaban tahay, haddana gollonkeedaa bannaan. way socotaa, way xijaaban tahay, horaadyadeedaa la arkaa. way socotaa, way xijaaban tahay, barfuun baa ka soo carfaaya. way socotaa, way xijaaban tahay, say sheeganayso, haddana dharkii baa ku dheggan. xaaladda noocaas ayaynan dhicin. gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay daacada alle ku dadaal. waad u jeeddaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso. waad u jeeddaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada. 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada. intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina. dumarkii maanta qaar baa ololaynaya, waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo. war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin, war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay, war haddii moxamedun rasuulullah aadanka tegaynin, mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso, war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso, haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo, meel allaala meeshuu geli karoo xalaala uu galo, qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo, waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye? war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay? ma in la qaawiyaa? ma in xafiis la fadhiisiyaa? ma in nin u soo galaa? ma inay sirwaal qaadataa? ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa? xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa. war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray? war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta, waa xilliga ay gurmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan, inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray. ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala. waidaa bushira axaduhum bilunfaa dalla wajhuhu muswaddan wahwa kadiim. haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey, wejigiisaa madoobaanayey. gabar loo dhalay waxaad mooddaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay. ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بنانك ما soo baxaya waaya gabar baa loo dhalay, wax idinkaga dandarnaa ma jiray, wax idinkaga foolxumaa ma jiray. walaalayaal, aabbihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo, aabbihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka, hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin, hadduusan dadka akhyaarta ag imaanaynin, yatawaaraa, waa dhuumanaya, waa isqarinayaa. xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay: ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab. inuu ciidda isaga duugo waxaan xunee dhashay, inuu carrada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi, amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin. labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay, ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso. qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen, ay dar u soo labiseen, ay dahab u soo geliyeen, godna ay u soo qodeenuu wadaa. garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe aabbe, asna wuxuu u wadaa inuu godka ku rida laa ilaaha ila allah. dhaxaasaa alla idinka badbaadiya subxaana wa tacaala. surwaalaad u qaylinaysaan oo waxaad u ololaynaysaa in xafiis laydin fadhiisiyo, waxaad u ololaynaysaa in dharka laydinka dhigo, waxaad u ololaynaysaa inaad baxdaan. xaaladdu sidaa ma aha walaalayaal. xayaatadan xayaataa ka dambaysa. aabbe aabbe way tirtiraysaa carradii godkuu qodaayey yaa garka uga taala. aabbe aabbe ayadoo lahu qabanaya, markaasuu ku tuurayaa, markaasuu godkii ku ridayaa. sayxadeedii qayladeedii oohinteedaa la maqlaa laa ilaaha ila allah. xaaladaasaa ilaahay idinka soo koriyey subxaana wa tacaala. waida almaw'uudatu su'ilat, tii xabaalaha lagu xabaalay ayaa la su'aalayaa buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. marka la su'aalo gabadhii nolosha lagu duugay, aaway kii duugay?
warkii laga gardarnaa haddii maxkamadda la saaray kii gardarnaa ka warrama say xaaladiisu noqonaysaa intay goorgoorday jalaabiibta tasho walaalayaal waxaan aad uga digaya gabdhaha xijaabka moodeelada wata ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waa xijaabkii raaska waa xijaabkii